daawadayaal mar kale ku soo dhawaada wararka warbixinada iyo wareysyada runta news journal oo aad si joogto ah ugala socotaan Soomaaliya iyo Seattle Washington ee carigaasi Mareykanka. qarax geystay dhimasho iyo dhaawac ayaa saaka ka dhacay wadada 22 Oktoobar ee magaalada Muqdisho. qaraxan oo lala beegsaday kolonyo ay saarnaayeen xubno ka socday UN-ka ayaa inta la ogyahay wax ku geeriyooday 5 askari oo ahaa ilaalada UN-ka halka 5 kalena ay ahaayeen dad shacab ah. qaraxan ayaa sidoo kale geystay burbur hantiyadeed iskugu jirta guryo iyo gaadiid. shabakada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxan qasaaraha baan geystay. gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee gobolka Banaadir Mudane Cali Yara Cali oo isaga qudhiso meesha marayay ayaa warbaahinta la hadlay. loo dhib yaray qasaarada halkan ka dhacday sida meeshan u jeedaan runtii qasaara dhacday sida cadowga joogtada ahayd oo uu bartilmaameedsanayay dadka Soomaaliyeed iyo hantida ummadda Soomaaliyeed ee shaqadoodii bay halkii ka sii wadaan. qarax ayaa saak halkan ka dhacay qasaarada ilaa hadda inta aan ka warqabno waa 5 askari iyo 5 qof oo rayd ah. wax dhiba oo hadda inta ka badan oo aan ognahay ma jiraan. cidda la target gareeyay iyo sababta loo target gareeyayna baaritaanada la sameeyay ku soo bixi doonaan. waa u jeedaa filayo gaarigaas halkaas waa qarax ka dhacay. innagana waxaan maraynay darbiga meeshaas ku darbiga ku dhamaado laakiin gaariga aan ku jirnay ma aan joogsan horaan u sii soconay. meeshaan marka qasaaradaas hadda ka dhacday waxaan baari doonaa laamaha amniga wixii jawaabana haddii Ilaahay yiraahdo marka ugu horeysa oo baaritaan ku dhamaado yaa la idin la wadaagi doonaa. waxaan mar kale ku sii xoojinaynaa laamaha amniga inay xoog saaraan sidii amniga ilaalada amniga loo xoojin lahaa. runtii maalmihii la soo dhaafay iyo bilihii la soo dhaafay waa roonay dadaal badan iyo waqti badan la bixiyay. haddeerna nama cabsi geli karaan daacadowga shaqadiisa soo wataa inuu waddanka burburiyo ah annagana shaqadeena wadana inaan dalka badbaadina ah. dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay taxadaraan waa waxyaabaha aan ka digaynay oo aan dhahaynay amniga maartay waxyaabaha oo laga ganacsan kara kamid ma aha. waxaan rabnaa inay dadku taxadaraan inay guryahooda joogaan inay is ilaaliyaan. cadowgu waxay isku dayayaan maalmaha soo socda inay xoojiyaan inay dadka Soomaaliyeed dhibaateeyaan. annagana insha Allah tacaala waxaan sida caadada ahayd isku dayi doonaa inaan annaguna xoog saarno inaan dadka iyo naftooda iyo hantidooda inaan badbaadino. dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay nala shaqeeya laamaha amniga la shaqeeya guryihiina jooga inta wax isbedelayaan yaan waxyaabahan hadda la wado oo la rabo siyaasad in lagu gaaro yaan dhiigina laga faa'iideysanina. annagana ha naceebeynina idinkana naftiina ha laginina guryihiina jooga. waa mahadsantihiin. wax hadda khasaaradana waa inta idin sheegnay 5 askari oo dhimasho ah 5 qof oo rayd oo dhaawaca iyo gawaaridan meesha ku burburtay. annaga marnaba ma dhici doonto haddii Ilaahay yiraahdo cadow inuu noo jabiyo intaan annaga shaqada imaana dad kale Soomaaliyeed shaqadan soo waday innaga haddaan wadnaa dad kale naga dambeeyo Soomaaliyeed amniga inay ka shaqeeyaan wasiilada doonaan. Al-Shabaab nagama adkaa doonaan intay saas u qarxiyaan isla markiiba nadaafadaas ay gabdhaha iyo wiilasha ku wadaan nagama adkaa doonaan. waxaan rajaynaynaa 10 daqiiqo soo socota wadadan in la furo ay sideedii ahaato. waa ku mahadsantihiin daawashadiina. fadlan ku dhufa like dhammaan baraheena runta news journal ee YouTube, Facebook iyo Instagram. hana ilaabin inaad saaxiibadaada la wadaagto una share gareyso wararka xaqiiqada ku dhisan.